nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof addoonaho addoommada ilaahay ka midihi ma jiro oo dhibaata ku dhacayso. dhibaatadaasi ama maalkiisa ha ku dhacdo ama jidhkiisa ha ku dhacdo ama naftiisa ha ku dhacdo, dhibaata ay soo gaaraysaa ma jirto. oo dabeetana ducadan ku ducaysanaya oo odhanaya ilaahow anigu addoonkaagii baan ahay, addoonkaagii baa i dhalay oo aabbahay ah baa i dhalay, addoontaadii baa i dhashay oo hooyaday ah baa i dhashay, taladayda adaa gacanta ku haya, taladayda iyo arrinkayga adaa gacanta ku haya, wixii aad xukuntaa ilaahow way igu fulayaan, waa saaad u xukuntay, xukunkaaga iyo qadahaaguna waa cadaalad. magac kastoo ilaahow aad leedoo magacyadaada ka mida oo naftaada aad ku magacowday, ama kitaabkaaga gudihiisa aad magacaa ku soo dejisay, ama khalqigaaga cid ka mida aad bartay, ama cilmigaaga qaybka aad ku daysatoo kuu dhex yaalla, waxaan ilaahu kugu weyddiisanayaa qur'aanka cadiimka aad soo dejisay qalbigaygu miduu ku barwaaqoobo oo ku hanuuno oo qalbigayga biyadhiga. ilaahu qur'aankaaga ka dhig, ilaahuw laabtayda iyo qalbigayga ku nuuri qur'aankaaga, murugtay haysaa ilaahuw qur'aankaa igaga dulqaad, ku dhaqankiisa iyo akhrintiisa iyo ku cibaadaysigiisa, walwalka i haya ilaahuw igaga kaxee. hadduu ducadaa salaada shanta qofka ilaaliya kaanat lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan ilaa yowmi alqiyaama, waxay u noqonaysaa nuur iyo xujo adag iyo badbaado ilaa maalinta aakhire laga gaaro. waman lam yuxaafid calayha, salaadaa qofkaan ilaashan, lam yakun lahu nuurun walaa burhaanun walaa najaatun, waxaa qofkaasi nuur iyo burhaan iyo xujo iyo badbaado midna u noqon mayso. wa kaana yowma alqiyaamati maca fircawna wa haamaana wa ubay bnu khalaf, aakhirana kuwa madaxdii gaalada u sarsareeyey ee jahannamo ilaahay ku gubayo kuwaasuu la jiri doonaa. waxaa ka mida degdega shareecadu ay diidday qofku inuu baryada ilaahay iyo ducada degdegsado. ilaahay buu baryayaa, dantiisii uu u sheeganaya, baahida uu qabuu sheeganaya, laakiin wuxuu rabaa dhaqso ilaahay inuu jawaab u siiyo. ilaahayna wuxuu doonayaa subxaanahu wa tacaala ducada aad weyddiisatay saddex mid inuu kaaga dhigo, sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. in durtaba lagu siiyo ducadaadii aad ilaahay weyddiisatay oo lagaa aqbalo, in dhib kugu soo socda oo kanaad ka cabanayso inuu ka weyn yahay laga yaabo, ilaahay inuu kaagaba duwo oo kaaga xijaabo ducadaada baryadeedii, oo muraadkanaad weyddiisanayso inta la iska badaayo aan iminka lagu siin, dhib kaloo kugu soo socoto isagoo og yahay oo arkayo oo u qadaray inuu kaaga duwo ilaahay subxaanahu wa tacaala, ama inuu aakhiro ilaahay kuugu dibdhigo oo aakhiro uu ku siiyo waxaan aad ka cabanaysaa ta kale aakhira dhibaatadeedu adag tahay uu kaaga dhigo. qofka laazima oo caado iyo dhaqan ka dhigta adkaarta sugan ee nebiga ka sugan sal allahu calayh wasalam sabaaxan wa masaa'an wa fi lawqaati waalaxwaali, waqtiyada ay soo aroortay iyo xaaladaha ay ku soo aroortay kala duwan, qofka habeenkiisa iyo maalintiisa kaana min addaakiriina allaha tabaaraka wa tacaala kaiiran, dadka in badan ilaahay xusa ayuu ka mid noqonayaa subxaanahu wa tacaala. waxaynu ma isu dardaarmaynaa walaalayaal, ilaahay iskama celin karna yaynan isku taagin. war ilaahay iskama celin karno yaynan isku taagin. waa axadkii ina lahaa, waa rabbigeen. war macaasida iyo dunuubta loo badheedhayo ee haddana la ysku daawanayo, ee kii wax garanayey ee diin wax ka yaqaanay ee aqoon maadiya wax ka yaqaanay ee aqoonyahanka ah iyo kii jaahilka ah iyo kii dhallinyarada ahaa la daawanayo aan yac la iska dhahaynin, waa masaa'isha halaagga keenaysay ka mid tahay. nicmadaasi waxaa lagu calfanayaa ilaahay macaasidiisa oo laga fogaado. ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha alinsaanu maa garraka birabbika alkariim, qof yow bani aadamka ah rabbigaa maxaa kugu dagay? war maxaa ilaahay kugu khatalay? ilaah miyaadan aqoon? ma axad la isku taagaa? ma axad la caasiyo oo laga hor yimaadaa? alladii khalaqaka fasawaak, war allaha ku abuura ee ku simay sida la arkay kuu simay, facadalak.